الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا برنامج gaar aynu la yeelanayno ama aynu ka diyaarinayno Asad Cismaan Guuleed Jawaase oo ah gudoomiyaha waqooyiga gobolka Galgaduud u qaabilsan xisbiga midowga nabadda iyo horumarka oo marka magaciisa la soo gaabsho loo yaqaan UBD ayaynu waraysi la yeelanaynaa gudoomiye ku soo dhawow barnaamijkan oo inoogu talagalay inaynu kaaga wareysano xaaladda xisbiga oo dhawaan adiga lagu soo magacaabay doorayana in deegaanada laga hirgeliyo sida aynu hordhaca xogta ku hayno mawlid aad baa u mahadsan tahay sidaad u sheegtayba waxa weeye waxaan ahay gudoomiyaha xisbiga midowga iyo nabadda qaybtiisaan gobolada gobolkan Galgaduud waqooyigiisa runtii waan ku dhawahay barnaamijka waa ku soo dhaweynaya mudane inta badan deegaanadan markii la fiirsho waqooyiga Galgaduud oo laamiga ka soo baxsan wali xisbiye ma soo gaarin kama aysan hirgelin maxaa keenay in xilligan xisbigeenu halkan yimaado runtii horta sidaad ogtahayba xisbigan UDP oo laga soo gaabshay midowga nabadda iyo horumarka kulay hadda markuu arkay xaaladda Soomaaliya ay ku jirto iyo arrimihii macnaheedu qabaa'ilada waxaynu go'aansanay inaynu xisbigan soo daadajino oo martaqaana aynu keenno gobolada guud ahaan gobolada dalka sababtuna waxay tahay loo keenay waxa weeye in laga gudbo barnaamijka qabaa'ilka ahaa loona gudbo barnaamijka xisbiyada badan leh صح taasi fursad intee la eg bay u haysaa dadka gobolkan degan ama ummadda Soomaaliyeed dhamaantood runtii waa dareemi kartaa xisbi markii la yiraahdo waa akbar la isku geeyay waaye waa dareemi kartaa dadkii aaminsanaa qabaa'ilada ama qabiilka aaminsanaa ayaa meesha laga saaraya qabiilkii waxa loo guurayaa hanaanka xisbiyada badan leh waxa weeyaan waa in dadku ay isdhex galaan qof boosaaso joogo qof joogo Kismaayo qof Caabudwaaq joogo ay hal fikir iyo hal magac iyo hal astaan ay ku midaysan yihiin waa sababta keentay macnaheedu inaan maartay xisbigan aan maartay soo daadajino waad ogtahay hadda gudoomiyaha xisbiga mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa hore madaxweynaheennii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya shalay wuxuu yimid magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan asagoo u yimid xaalado xisbiga iyo mataqaana in la daadajiyo xisbigii oo mataqaana uu ka soo caasimadda lagu soo asaasay Muqdisho waxa weeyaan waxa loo soo daadajiyay inuu imaado wax la yiraahdo deegaanadii waana targetkanaga inuu xisbigeenu tago gobol degmo tuulo ilaa iyo baadiyaha lagana guuro hanaankii in qabaa'ilka ahaa loona guuro hanaanka xisbiyada badan leh waa midaas mid targetkeena inta badan daawadayaasha iyo dadkana daawanayo dhamaantood waxay isweydiinayaan xisbigeenu ma yahay mid sharciyad ka haysta dhinaca dawladda ama aqoonsi ha way jirtaa sababtoo ah xisbigu ama asxaab kale oo dalka ka jirto waxa weeyaan waa la siiyay shahaadooyinka inkastoo ay ku meel gaar yihiin insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadkan dhexdiisana inay qaadan doonaan sharciyadii weynaa marka way jirtaa waa sharciyeysan ma la oran karaa xisbigeenu wali ma buuxin shuruudihii xisbinimo ee laga rabay markaynu eegno xisbiyada caalamka ka jira runtii way dhici kartaa waa sababta hadda aynu u rabno u dadaalayno oo u tagayno deegaanada run ahaantii deegaanada degmooyinka iyo gobolada iyo baadiyaha waxyaalaha aan u wareegayno waxa kamid ah oo inaan soo daadajino nagu kalaftay waxa kamid ah in uu mataqaana xisbigii uu daadago buuxiyana shuruudihiisii run ahaantii fursad intee la eg baad u haysaan dhalinyarada deegaanadan iyo dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama ay siyaasaddu horay marka 4.5 wax lagu qaybinayo ama awood qaybsi qabiil wax lagu qaybsanayo way yareed inay helaan dhalinyaradu fursad ayagoo aqoon leh baysan fursad helin maadaama xisbigeenu uu yahay xisbiyada ka hana qaaday dhammaan gaaray deegaanada Soomaalida fursad intee la eg buu dhalinyarada u hayaa runtii fursad fara badan buu hayaa waxa weeyaan fursaduhu u haya waxa kamid ah meeshii
dhalinyaradu ay mataqaanaa caburis badan ay kala kulmi jireen dhanka qabaa'ilka oo la oran jiray adiga dhalinyaro tahay waxa weeyaan raka waaweyn baa mataqaanaa noqonaya cidda matalaya oo noqonaya xildhibaanada federaalka noqonaya xildhibaanada isteediyada noqonaya gudoomiyaalka halkaas mid ka bedelan ayaan anagu keeninaa sababtoo waxa weeyaan marka uu xisbi uu qofkan uu galo waxa weeyaan xisbigaas uu ka soo dhaxbaxaya waxa uu campaign gareynayo oo mataqaanaa wadayo dad xisbiyada ka tirsan marka xisbigu ka soo dhaxbaxaya wuxuu noqonayaa asagoo xisbigan oo kale bilmatalan UDP oo kale asagoo ka tirsan inuu mataqaanaa uu maaragtay xildhibaankii inuu noqdo mataqaanaa gudoomiyihii degmada asagoo xisbi ku tiirsan oo aysan ahayn mid qabaa'il keenay waana midda targetkeena ah macnihii annaga iyo xisbiyada nala mid kaaba waa midda targetkeena ah inay laga gudbo hanaankii 4.5 ama 4.5 sidii loo yaqaan loona gudbo hanaanka xisbiyada badan oo dadku ay mataqaanaa isku fikrad noqdaan lagana gudbo qabaa'ilkan kala xirxirnaantan wadankuna uu noqdo wadan asxaab ay ka hirgasho oo anigu meeshii aan dadkayga iyo familkayga aan mataqaanaa talada iyo go'aamada aan la tishan jiray go'aamada ku cilja aan xisbigayga la tishanaado oo mataqaanaa haddii qof ka soo baxo xisbigayga uu ka soo baxo meesha la yiraahdo bilmatalan jubbooyinka oo kaleeto koonfur galbeed Soomaaliya kale isteediyada kale uu ka soo baxo uu iiga wanaagsanaado qof familkeena oo ka soo baxay tusaale galmudug oo kale waana mid rabo in macnihi laga duulo lagana mataqaanaa gudbo barnaamijkii qabaa'ilka ahaa loona gudbo barnaamijkan xisbiyada badan waana mid keentay dadaalka badan loogu jiro in mataqaanaa barnaamijkii la soo daadajiyo oo asxaabtii xisbiyadii mataqaanaa ay sidaas maartay ku hirgalaan gudoomiye jawaasi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo inta badan Soomaalidu markii ay loolan siyaasadeed ku jiraan markii ay loolan xisbiye ku jiraan waxay raadiyaan magac aad u qurux badan sida hadda xisbigan magaciisa ka muuqata waa midowga nabadda iyo horumarka waana wax u fiican bulshada oo dadku markay ay arkaan magacaan soo jiidanayo ka magac qurxoonaan ahaan inaad magac qurxoon la timaadaan way wanaagsan tahay laakiin muxuu xisbigiinu xisbiyada kale uga duwan yahay runtii xisbigeena waa dareemi kartaa waxa weeyaan xisbigeenu wax badan uu xisbiyada kale uga bedelan yahay wax badanna uu kala mid yahay xisbi markii la yiraahdo xisbiyada kale uu kala mid yahay oo magaca uu kala mid yahay laakiin wax qabadkiisu xisbigeenu waa xisbi la soo tijaabiyay hadda gudoomiyaha xisbiga oo kale waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 2 sano ka hor ودريمي كرتا وحقبتكيسي aad buu u farbadnaa xagga infrastructure markii laga hadlo xagga mataqaanaa nabadda markii laga hadlo xagga hanaqaadida isteediyada markii laga hadlo waa dawladii samaysay dhamaan isteediyadan maanta aynu mataqaanaa Soomaaliya raad raaca oo ah ha ahaato Hirshabeelle ha ahaato Koonfur Galbeed Soomaaliya ha ahaato Jubbaland ha ahaato mataqaanaa wax la yiraahdo markii uu gudoomiyaha xisbigeenu uu qabsanayay dalkan waxa ka jiray wax maamul goboleeda Somaliland oo Soomaaliya diidanayd iyo Puntland baa ka jiray dhamaan inta kale waxa weeyaan waa raadkeeni waa macnihi waa waxyaalaha infrastructure-ka ayaan ka tagnay waa tahay magaalada Muqdisho oo kale to waxa weeyaan wax qabadkeena uu ka muuqda dhamaan laamiyada maanta la marayo dhamaan mataqaanaa waxyaalaha solar systems-ka ha noqdeen wadooyinka ha noqdeen mataqaanaa airport-ka dhismihiisa oo kale to ha noqdeen dekada shirkadihii caalamiga ah ee lagu wareejay ha noqoto shirkadii baasaboorada oo kale to waxa weeyaan waa waxyaalo raadadkeeni ah oo hadda si muuqdo waa dareemi kartaa hadda waxa ugu sokeeyo oo markii aan maaragtay aan waxa waa dareemi kartaa mataqaanaa hadda laftigeeda maaragtay inay waxyaalaha infrastructure-ka oo hadda dawladdan ay ku dhaqaaqaysa xataa raadadkii ka tageen tii hore ay tahay qofka doonayo inuu xisbigiina ka mid noqdo ha joogo gobol tuulo iyo miyi intaba maxaa laga doonayaa xisbigeenu ma ahan xisbi shuruud ku xiran qof kasta oo Soomaaliya xaq wuxuu u leeyahay inuu ka mid noqdo isagoo Soomaaliya isagoo aragtidiisa ka dhiibanaya oo xor ah isagoo waxna ku soo siyaadin karo waxna ka dhimi karo waxaas waa saas way waxana waa saas way isagoo dhihi karo ma ahan wax shuruud ku xiran oo la dhihi karo waxa weeyaan shuruudahan ku xiran yahay sidaan way qof kasta oo Soomaaliya qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed waa u furan yahay xisbigeena uu soo gali karaa waxaana mataqaanaa waana si nabadahan lagu soo dhaweynaa sax xisbigeena waa lagu soo kala horeeyaa ma ahana lama kala laha sax
وشو wanaagsan markii deegaankan xagga fursada loo soo gudbo goormuu xisbigu xafiis furanaya goormuu hawlihii halkan ka shaqo bilaabaya runtii mawlida aad baa mahadsantahay waa su'aal qurux badan runtii waa dareemi kartaa oo qofku markuu dhasho turba ma ordo waxa weeyaan xisbigu waxa looga dhawaaqay dalkeena gudihiisa gudoomiye ku meel gaar ah loo sii doortay mudane xasan sheekh maxamuud gudoomiye ku xigeen senator fartaag xoghayu leeyahay fiqi runtii waxa weeyaan day after day meel buu tagayaa meel buu ka guurayaa meel buu tagayaa waxa weeyaan marka koobaad wuxuu soo maray caasimadii gobolkii buu yimid degmooyinkii buu yimid waa rajaynaynaa inuu tuulooyinka iyo baadiyahana uu sii tago marka dhawaanna waxaan furi doonaa xisbigii iyo mataqaanaa xafiisyadiisii iyo xalfadiisii furitaankaba insha Allah waxaan rajaynaynaa xilli dhow inaan furi doono hadii alla yar waxa tahay gudoomiyaha u qaabilsan xisbiga midowga nabadda iyo horumarka waqooyigan gobolka Galgaduud waxa ku daawanayo shacab aad u fara badan maxaad u jeedinaysaa shacabka reer Caawud Waaq iyo sidoo kale dhammaan deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud adigoo ka faa'iideysanaya fursadan aad baa u mahadsantahay run ahaantii waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto una jeediyo dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dhalinyarada reer Galmudug gaar ahaan dhalinyarada waqooyiga gobolka Galgaduud waxaan rabaa inaan meeshan uga diro fariin ah in ay xisbiga ka mid noqdaan iyo asxaabta kale oo dalka ka hana qaadayso kana gudbaan fikradaha qabaa'ilka iyo xagjirnimada una gudbaan hanaanka xisbiyada badan waa tahay daawadayaal intaas ayaynu ku soo afmeereynaa barnaamijkii gaarka ah oo aynu la yeelanay gudoomiyaha xisbiga midowga nabadda iyo horumarka oo marka magaciisa la soo gaabsho loo yaqaan UBD أسد عثمان جوليد شواسة gudoomiyaha u qaabilsan waqooyiga gobolka xisbiga barnaamijka waxa idin la socodsiinayay anigoo Mawlid Jaamac Faarax Mawlid Galwaaq dhinaca kaamirada waa Saciid Cabdi daawadayaal intaas ayaan idin kaga tageynaa sidaas iyo ammaano Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh